consistency-gaas tirada badan marka muxuu ku siinayaa legitimacy ku siinayaa koo sharciyad oo ah inaad tahay qof commitment-gaagana wuu muujinayaa oo qof hal dhinac ay ka go'an tahay inaad tahay marka time u ogolow noloshaada diiradana saar su-aal hadda isweydiin marka nolosha maxaa rabtaa inaad kusoo zaa'idis maxaad rabtaa berri markaad dhimatid in lagugu aqoonsado lagu yidhaahdo hebel waxaasaa lagu yaqaanaa arrinta u dambaysa intaana 6 qaybood u geli waa kaas aan kuu soo koobay bu hadalkan halhayskan cajiib wey ninkaas Oscar Wilde iskale muxuu yidhi mataqaan be yourself everything else is already taken warheeda naftaada iska ahaw wax haray ma jiro nolosha wax kasta waa la qaatay naftaada iyo ku dhaaf waxba meel kale ha raadin waxba iska dhigin kii tinta xiirnaa waxba iska dhigin Michael Jordan waxba iska dhigin Bill Clinton waxba it's nothing just waxa harayba naftaada waa everything else is taken marka dad baa 24 saac ku mashquulsan yihiin social media marka aragti raadinta dad kale Soomaha please ha ku luminin I hope inaadan ka mid ahayn dadkaas qodobadan aan u galna marka qodobka koowaad ee elementskan ka mid ah personal branding ee muhiimka ah qodobka koowaad waa maxay yeelo hayb lagugu yaqaano professional identity waa inaad yeelataa so critical professional identity-ga shaqo ahaan maxaa lagugu yaqaanaa Cabdiwahaab haddii la yidhaahdo wixii la raacin karo waa in la helaa man Cabdiwahaab nin maxaa la dhahaa wiil maxaa la dhahaa do maxaa la dhahaa that's too generic lama rabo Cabdiwahaab identity-giisa maxaa waay soo in la heli kara maaha cid identity-gaas ii qeexaysa ma laha ugu aniga inaan qeexdo adiga inaad qeexatid waa maanta maxaa rabtaa what's your professional identity maxaad rabtaa in lagugu aqoonsado ilaa noloshu way gaaban tahay si joogta ah maxaad u qabataa oo loo dhihi doonaa noocaas weeye qodobka labaad online iyo offline identity-gaagana waa inay meel ku saaran tahay wuxuu yidhi maalin kasta ma ku mashquulsan tahay inaad sumcad dhisatid oo positive reputation ah nin baa maalin walba wuxuu dhisanayaa social media-hiisa isagoo ku jira negative reputation waxa lagu yaqaano dhan waxay noqonayaan wax aad ka carraysid 4 saac ugu mashquulsan waxaa loo baahan yahay inaad message-kaaga iyo dhambaalka aad rabtid dadka inaad u dirtid dhambaal munaasab ah oo haddana midna isleh consistent aan isbeddelay arrintii hadday haddii masalan hadallada aad soo dhigtay berri inta la soo qaado sanad 5 sano 10 sano kadib lagu hor keeno kuwa aad ka naxayso hadday yihiin ha dhigin marka hore kuwa aadan ku farxi doonin hadday yihiin ha dhigin marka hore because loo baahan online iyo offline laba nolol oo kala duwan dadka qaarkood ayaa samaystay si fiican isaga ilaali ma habboona inaad laba nolol yeelid hal nolol yeelo gabadha cuntada ka karinaysa YouTube iyo Facebook ee cunto kariska baraysa dadka gurigeedii haddii cuntadaasi aan laga cunin ama aynan samaynin sidee u eg tahay for example sax maaha soo maha so multiple identities yeelanin qofkii caadi kugu yimaada iyo qofkii online kugu arka labaduba adiga waa adiga haddayaan soo sheegna soo maha isku mid ahow arrinta saddexaad ee muhiimka waxa weeye ahdaaf yeelo qiyamna yeelo maxaa qiyamkaaga muxuu yahay ben iyo barbagandaad wadaa weeyri dadkaana dhuminaysaa adduunyada waa lacag adeer ee dadka si lacagta u samaysan lahaayeen u sheeg weeyri iska dhaaf wacdigan aawodida mid baa ii soo qoray ninkaas odaga ah iyo aniga farqiga inoo dhexeeya waa maxay isku values ba ma nihinba qiyamkaan u kala duwannahayba lacagtibu wuxuu u arkaa isagu dharka in la dhigto aniguna waxaan u arkaa lacagtu inaynan goolku ahayne miinis yar weeye wayna imaan doontaa lacagtu sideedaba waa by product wax ka dhasha weeye
so haddaan valueskeena ilaashano on value la nimaano suuqa gelino lacagtu is definitely confirmed inay imaan doonto. So qiyamkaaga muxuu yahay? Maxaa rabtaa? Short term maxaa rabtaa? long term maxaa rabtaa? Actionable plan ma haystaa? qorshe ma ku dejisay?